miinooyinkan ayaa sida la sheegay waxaa duugay ururka al-shabaab oo dhowaan laga qabsaday deegaanadaasi isla markaasna ay ka qabsadeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Galmudug oo iskaashanaya. baabuur yar oo ah nooca ay Soomaalidu u taqaano kabta buudka oo jaad u siday degmada Bacdweyne ayaa miinooyinka mid ka mid ah la kacday xilli uu sii galayay maanta degmadaasi Bacdweyne. sidoo kale mooto bajaaj ay saarnaayeen ilaa 5 qof oo shacab ah ayaa miinada labaad waxa ay kula qaraxday mid ka mid ah wadooyinka soo gala degmadaasi Bacdweyne, waxaana halkaasi ku dhintay 5 qof ee shacabka ahayd. dadka ku dhaawacmay labadaasi miino ayaa waxaa dhaawacooda loola cararay magaalada Gaalkacyo oo in ka badan 100 kiiloomitir u jirta deegaanadan ay miinooyinku ka kaceen. Horay ayaa sidoo kale dhowr miino waxaa lala eegtay gaadiid marayay qaar ka mid ah wadooyinka dhex mara deegaanada koonfurta gobolka Mudug, gaar ahaan deegaanada ururka al-shabaab laga qabsaday. dhinaca kale kooxda miino baarista ee maamulka Galmudug ayaa waxay ku howleeyihiin qaabkii ay u soo saari lahaayeen ama u baari lahaayeen miinooyinka ku aasan deegaanada ururka al-shabaab laga qabsaday, waxaana jira dhowr miino oo ay ku guuleysteen soo saaristeeda. Cabdi Xasan Awowe, VOS TV, Cadaado.